way ardayda marka la taada maasantihiin waa iga kala go-ay maadada halkaa markaa marayay waxaa inoo maraysay qaybtani oo ah dhamaystirka. Okay, su-aashani wuxuu leeyahay u fiirso jaantuskani kadibna ka jawaab su-aalaha. Wuxuuna weydiiyey sheeg magaca jaantuskan horta arkaysid, sidoo kale bina wuxuu rabaa falaarta ba maxay noo tilmaamaysaa. Markan waxaan kaga jawaabnay waxaana qariirada dhulka waaye. Sidoo kale tan kalena waxaan dhahnay falaarta ba waxay tilmaamaysaa dhulbaraha ayay tilmaamaysaa. Su-aasha kale wuxuu ku leeyahay sheeg laba ka mid ah kooxaha u nugul duumada. Waxaan markaasi dhihi karnaa waxay noqonaysaa sida tan. Waxaan kaga jawaabnay waxaa dhahnaa caruurta ka yar 5 sano, sidoo kale habeenka uurka leh. Labadaasaan ugu shaqeynay. Waayahay su-aasha kale wuxuu leeyahay maxaa looga hortagi karaa jadeecada. Waayahay sheeko dheer aa kusoo qoraysaa meeshaasi. Waxaa looga hortagi karaa talaalka, saas inaad soo qorto waaye marka imtixaan ka shaqeynaysa, laakiin waan kuusoo gagaabinaa. kuwa qaarna waa kaaga tegi rabaa adaba kuu diiri rabaa. Marka tan hadda waxaa dhahnaa talaalka MMR, sidaasaan ugu shaqeynay. su-aasha kale waxaa dhehaysaa waxaa sheegtaa laba ka mid ah sida looga hortagi karo nabaad guurka. waayahay su-aasha waxaan ugu shaqeynay marka waxaan dhahnay waxaa looga hortagi karaa laba ka mid ah sheeg uu dhahay dhireen iyo dalagedis. Dalagedis sidaasaan ka wadaa dalagedis. su-aasha kale wuxuu leeyahay sheeg su-aashana waxaa ugu shaqeeyey amxaariga. waxaan dhahnay luqada rasmiga loo hadla Itoobiya waa amxaariga. su-aasha kale waxaa leedahay waa maxay cudurka duumada. waa maxay cudurka duumada. waxaana ku qeexay waa cudur ka mid ah cudurada faafa. halkaasaan ku akeeyey. su-aasha xigta toddobaad waa maxay cudurka duumada. istafiyaa ku celinaya qeexistii wax kama dhibayso. aniga hadda waan kusoo celinayaa waa kuu keenayaa ogaadii. su-aasha 8aad waxa uu leeyahay sharax kooban ka bixi wuxuu leeyahay gumeysigii gumeystay dowladda Algeria. waayahay sharax kooban aadinaya su-aasha adika weydiina isku aadisan waayahay su-aasha kaleeto waxa uu leeyahay falanqeeya cidda u dhexeeyay dagaalkii dhagax tuur. waxaan dhahay Algeria waxaa gumeystay Faransiis waxayna xornimada ka qaateen 3 Luulyo 1962. waayahay su-aashaasi 8aad waa idin qoray. ta 9aadna falanqee cidda u dhexeeyay dagaalkii dhagax tuur. waxa uu u dhexeeyay ururkii xornimo doonka ahaa ee SYL iyo Ingiriiska oo dalka haystay. sidaasaan ugu shaqeeyey. su-aasha ugu dambeysa waxay leedahay qor magaca calanka hoose ku qoran wadanka uu yahay calankani. marka imtixaankani aan ka shaqeynaynay sanadkii hore waa isku khilaafnay. qaar Soomaaliya dheheen, qaar waxay dheheen Morocco, qaar waxay dheheen marka markii ugu dambeysay Morocco u badanay qaadanay. haddana Morocco ilaahay ku qori doonaa adika u jeeda liilashanka Morocco. waayahay Morocco aan ku qoray marka halkaas markaasuu kusoo dhamatay wuu soo gabagaboobay hadduu ilaahay idmo. aad aa umahadsantihiin. waxaa ku xigi doonta maadada xigta haddii ilaahay idmo waxay noqon doontaa af Soomaali insha Allah. waa ina videogiisa xiga sida iyo amaano Allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.